habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada caawiya caalamka waa Cusmaan Cabdi Xasan qodobada wararkeena ugu waaweyn waxay kala yihiin daadad ayaa ku dhuftay bartamaha Shiinaha waxayna ku qasbeen kumayaal inay guryahooda ka baxaan warbixin dheeraad ah ayaynu idinkaga haynaa wararkeena kalena caaw waxa kamid ah nabad ayaa la filayay balse dhabtii dagaalka Darfur uu socdaa si kastoo loogu heshiiyay nabad in badan rajaynaysay inay soo afjarto dagaalka 10 sano socday halkii laga daryeeli lahaa markii xoogooda lagu hodmay ayaa loogu bedelay jirdil iyo in la siiyo kaniiniyo awoodda kordhiya ciyaaryahanada Olombikada si ay u tababartaan suuli dhaxdiis kushiin iyo meel kasta ayay ku tababaranayeen ayay galeen sidii ay ku gaari lahaayeen waxay rabeen intii lagu jiray xayiraadda corona kala soco BBC News Somali Television ka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka qaar ka mid ah magaalooyinka ku yaala bartamaha dalka Shiinaha ayaa 3 maalmood gudahood waxa ka dhacay roob u dhigma intii sanadda ilaahid dadkii ugu badnaa waxay ku dhufteen magaalada la yiraahdo Jungjiao halkaasi oo 12 qof ugu yaraan ay ku geeriyoodeen badana nidaamka tareenada dhulka hoostiisa mara gaar ahaan dhabaha xadiidka ee tareenadu ku socdaan ayay biyuhu qaadeen gobolka Hungnaan ilaa 200 oo kun ayaa laga soo daadgureeyay Mawlid Xaaji Cabdi ayaana ka waramaya muuqaalada rakaab ku xayiran gudaha tareenada dhulka hoostooda mara iyadoo ay biyuhu sare u kacayaan ayaa argagax ku riday wadan adeegyada gaadiidka dadweynuhu ammaan ahaayeen boqolaal rakaab ayaa la badbaadiyay laakiin waxaa jira kuwa aan nasiib u helin ka gadaal markii daadadka xawaaraha cabsida leh ku socday ay ku dhufteen biyuhu waxay gaarayeen garabka aniga iyo ilmaha labadeenaba waxaanu ku dhawaanay in aan quusno waynu daalnay laakiin waxaan isticmaalay cududayda si aan kor isugu qaado waana sababta ay iiga muuqdaan dhibaatadan muuqaalada cajiibka ah ee dadka oo la badbaadinayo ayaa qabsaday baraha bulshada dhammaan wadooyinka gobolka Hunan waxay noqdeen sida webiyo buluug ah kuwaasi oo liqaya gaadiidkii socday kooxaha gurmadka ayaa mararka qaarkood qasab ay ku noqotay inay ku dabaashaan jaakadaha badbaadada si ay u soo badbaadiyaan dadka go'doonsan roobab ay ahayd inay sanado da'an ayaa gobolka ka dacay maalmo gudahood kadib markii militarigu ay ka digeen in biyo xireenka iyo hitaan uu burburi karo waqti kasta ciidamada ayaa loo diyaariyay inay qarxiyaan hareeraha iyagoo isku dayaya inay leexiyaan daadadka sii kordhaya kooxaha gurmadka ayaa badbaadinaya carruur iyagoo sabaynaya biyaha waxyeelana aanay soo gaarin inta taasi ka horeysa dadka reer Hunan waa inay ka gudbaan maalmaha soo socda tan maxaa yeelay roobabkuma aanay istaagin saadaasha hawaduna waxa ay sheegaysaa in roobab badan ay soo fool leeyihiin dagaalka Darfur uu socdaa inkastoo ay jirto xabad joojin in badan ay rajaynaysay in ugu dambeyn ay soo afjari doonto dagaalka 10 sano socday dagaaladii dhacay January iyo April waxa ku dhintay dad ka badan 200 dagaaladaasi kadibna boqolaal kun ayaa hooyo la'aan noqday horaantii bishan waxa dhacay weerar kale oo ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen nabad ilaaliyaasha qaramada midoobay waxay kala soo baxeen Suudaan 20 kun oo ciidamo ah oo ay ballan qaadeen kuwa kale inay ku bedelayaan balse weli ma iman BBC-da ayaa booqatay magaalada la yiraahdo Junaynah ee galbeedka Darfur Iimaan Maxamed ayaa ka waramaysa heshiiskii nabadeed ee howsha badan loo soo maray ayaa burburay waxaana la filayay in Darfur uu waa cusub oo nabadeed u bariyay khaamise gurigeeda burburkan ayaa haatan ka haray waxay gubeen dhammaan guryihii markii aan isku daynay inaan wadada u baxsano waxay toogteen walaalkay markuu isku dayay inuu istaago ayay mar kale xabad ku dhufteen horteeda ayay ku dileen mara ayaan dusha ka saaray waana iska ag joogay dadka deegaanku waxay filayeen in sanadihii dagaalka ay soo afjarmeen laakiin dagaalka ayaa weli sii socda sanadkii 2019 Umar al-Bashir ayaa xukunka laga tuuray sanad kadib dawladdu waxay saxiixday heshiis nabadeed iyadoo qaadaysa mas'uuliyadda nabadgelyada ee Darfur
ciidamada nabad ilaalinta ee caalamiga ayaa gobolkan ka baxay balse cidna ma bedelin hadda dagaalka ayaa dib u bilowday in badan waxay eedda weerarada saareen ciidamada RSF ee Suudaan oo ah military dawladda ugu talagashay inay ra'yidka ilaaliyaan laakiin weli kama hadlin eedahaas weerar kasta wuxuu sare u qaadayaa cunayarida halakan hawlaheennii gargaarka hakad ayay galeen amaba dib ayay u dhaceen samafalkeennii ugu dambeeyeyna 2 toddobaad ayuu ka soo daahay taasi runtii waxay sababi doontaa inaannu gargaarka gaarsiin doonin 1.2 milyan ee qof ay ku gaajoonaya galbeedka Darfur Al-Junayna waa caasimadda galbeedka Darfur hadda waxay noqotay magaalo wada teenda ah qof kasta oo halakan ku nool 2 jeer ayuu barakacay farqiga u dhaxeeya waa hadda waxay ku nool yihiin iskuul hoostiis waxayna ku noolaanayaan meel kasta ay ku dareemayaan nabad dadka qaarkood waxay bilaabeen inay ku noqdaan deegaanadii ay ka soo carareen Khamis waxaa laga toogtay gacanta laakiin hadda wuxuu dib u dhisayaa gurigiisii isagoo leh nolosha xero looma dulqaadan karo haddii aad doonaysid suuliga inaad isticmaasho waa inaad u socotaa 2 ama 3 saacadood iyadoo kumayaalna ay saf ugu jiraan carruurtu waxay doonayaan inay meertaan oo ay suuliga isticmaalaan balse kuma qanacsana taasina waa sababta aan halkan hadda ugu soo laabannay waana sii joogaynaa maadaama aan jid kala haysan baraha kontarool ee dawladda waxay ballan qaadeen ilaalo laakiin waxba kama qaban arrintan in UN-ka baxaan waa ceeb xaaladda ammaan ma aha nolosha hadda way adag tahay dagaaladuna way kordheen waqtigan la joogo dadka reer Darfur waxay ku jiraan dagaal 10 sano socday mana muuqato nabad waarta bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararkeena caawa hogaamiyaha mucaaradka ugu weyn Tanzania Freeman Mbowe ayaa lagu xiray weerar habeenimo lagu qaaday hotel sida xisbigiisu sheegeen xisbiga Chadema waxay sheegeen in 10 xubnood oo kale oo xisbiga ka tirsan sidoo kale la xiray waxa la sheegay in ay qabteen kulan sharci darro ah mucaaradka ayaa qorsheynayay inay qabtaan dibadbaxyo lagu taageerayo in dastuurka wax laga bedelo balse madaxweyne Saamiye Saalixu Xasan waxay sheegtay inaan hadda waqtigaasi la gaarin qaar ka mid ah warbaahinta ugu weyn Mareykanka ayaa qoraal u diray madaxweyne Joe Biden oo ay kaga dalbanayaan in wariyaasha Afghanistan ee la shaqeynayay loo ogolaado in Mareykanka dib u dejin looga sameeyo warqada ayaa lagu sheegay in aad loogu baahan yahay in la caawiyo wariyaashaasi oo hadda ka baqaya argoosi iyadoo ciidamada caalamiga ah ay ka baxeen dagaalyahanada Talibanna ay hore u soo socdaan qorshe kan la mid ah ayaa hore looga hirgeliyay dalka Ciraaq Faransiiskuna waxay soo saareen qaynuuno cusub oo ah sida lagu galayo meelaha guud iyo iyadoo la isku dayayo in wax laga qabto caabuqa COVID oo mar kale inuu soo laba kacleeyo laga bilaabo maanta ciddii talaalan ama qofka haysta baaris inaysan COVID qabin ayaa geli kara madaxafyada shiinimooyinka iyo meelaha kale ee carruurta ku cayaaraan aqalka hoose ayaana go'aansan doona haddii qaynuunadaasi lagu dari karo la sii ballaarin karo maqaayadaha xarumaha dukaamada iyo gaadiidka dadweynaha ra'iisul wasaaraha cusub ee Haiti Ariel Henry ayaa ballan qaaday in uu samaynayo wixii karaankiisa ah si uu soo celiyo ammaanka iyo kala dambeynta kadib dilkii madaxweyne Jovenel Moise markii la dhaariyay kadib ayuu Mr Henry wuxuu ballan qaaday midnimo iyo bisayl siyaasadeed ururada bulshada rayidka iyo warbaahinta Haiti ayaa ka hor yimid magacaabistiisa Henry waxaa ra'iisul wasaare u magacaabay madaxweynihii hore intaan la dilin ka hor intii lagu guda jiray aafada corona shaqaalaha dalkan UK ayaa si aan kala joogsi lahayn u shaqeynayay si ay mujtamaca ay dukaamada uga helaan cuntooyinka aasaasiga ole call kala jaye oo ka shaqeysa mid kamid ah dukaamada magaalada London isla markaana asal ahaan ka soo jeeda dalka Nigeria ayaa BBC-da waxay uga warantay sida ay ugu faanto in ay aad ugu dadaashay in aysan joogsan adeega qutal daruuriga waa qaybtii saddexaad ee warbixinada halyeeyada qarsoon intaan xayiraadaha la soo rogin ka hor cabsi badan ayaa jirtay wax badan ayaana la gadanayay xaaladdaasna way ka duwaneyd dukaanka marka aan galo iskifaalayaasha way marnaayeen nasiib wanaag alaab badan ayaa noo kaydsanaan jirtay iskifaalayaashana dib ayaan u camiri jirnay inta aan la dareeminba inay eber yihiin
lama dareemi jirin xataa wax halkaas ka dhacay habeenkaas waxay ahayd shaqo aad u badan magacaygu waa Ola waxaan ka shaqeeyaa Waitrose gaar ahaan xilliga habeenkii markii uu koo bilaabanayay safmarka dhab ahaantii aad iyo aad ayaan u walwalsanaa waana cabsanayay waayo waxay wax igu cusub oo aan wax badanna ka ogeyn laakiin dhab ahaantii aad ayaan u faraxsanaa markii aan halkan imid waayo waxaana wax u qabanayay bulshada waxaan lahaa shaqo kale oo aan ku faraxsanaa laakiin waxaan rabay oo keliya inaan bulshada caawiyo inta lagu guda jiray safmarka waxyaalihii ugu badnaa dadka macaamiisha ka maqli jiray waxay ahayd shaqo fiican ayaad noo haysaan waa inaad nafsadiinnu ku faraxsanaataan aad ayay u naxariis badnaayeen hadallo wanaagsan ayay nagu dhihi jireen hadiida ayayna noo keeni jireen aad ayay noo garab istaagi jireen dad badan ayaana ku baraarugay muhiimadda ee leedahay shaqada aan ka qabanayno subarmarketka iyo muhiimadda u leedahay bulshada iyo sida looga faa'iidayay waxaan dhihi karaa waxa igu soo kordhay qab kaas oo ka imanaya shaqada aan qabto nafteydana waan ku faraxsanaa wixii aan u qabanayay bulshada inta lagu guda jiray safmarka waxay iga dhigeen qof naftiisa ku faraxsan oo qof walbana saasay u arkayaan shaqadayda waxay ahayd mid aad iyo aad u muhiim badan halgelin inaan qabto ayaana ku bilaabay markii horena ma aanan arkin sida ay muhiim u tahay laakiin markii uu yimaaday safmarka shaqadan waxaan ogaaday muhiimadda ay leedahay sideedii fiidnimo 14 daqiiqo ayaa wehelisa Afrikada Bari caawiya caalamka ayaa daawanaysaan oo toos London idinkaga imaanaya qodobada wararka ugu waaweyn aan idin xusuusiyo daadad ayaa ku dhuftay bartamaha Shiinaha waxayna ku qasbeen kumanyaal inay guryahooda ka baxaan
nabad ayaa la filayey balse dhabtii dagaalka daarfuur wuu sii socdaa si kastoo loogu heshiiyey nabad in badan rajaynaysa inay soo afjarto dagaalka 10 sano socday in ka badan 400 oo muhaajiriin oo sharci la'aan ah ayaa raashinka ka soomay caasimadda Belgium ee Brussels waxay rabaan in ay u fududaato helista deganaanshaha dalka taasoo u suurtagelinaysa in ay si rasmi ah u shaqaysan karaan BBC-da ayaa la kulantay muhaajiriinta qaar ka mid ah oo raashinka ka soonnaa in ka badan 50 maalmood maxamed xaraare ayaa ka waramaya in ka badan 400 oo soo galooti ah ayaa cuntada ka soomay Brussels badi waxa ay ku sugan yihiin kaniisadan waxa ay ogolaadeen in la duubo iyagoo dalbanaya in loo cadeeyo sida loo helo deganaanshiyaha sharciga ah intooda badan muddo ayay ku noolaayeen Belgium waxayna sheegeen in sharci la'aantu baday nolol ka hooseysa tan dadka kale naada waxa ay Belgium la timid hooyadeed iyadoo 15 jir ah waxa ay sheegtay in sharci la'aantu ka hor istaagtay waxbarashada sare sharci malihi aan waxbarashadeeda ku sii wadan karo waa mahadho tii ugu darnayd Henriette raashinka kama soomin laakiin waxa ay garab taagan tahay mabda'a I'm 32 years old. I live in Brussels and as an undocumented person waxaan ahay 32 jir waxaan ku noolahay Brussels sharcina ma lihi haddii aadan sharciyeysnayn waa inaad gooni ula macaamisho nolosha marmar reeraha ayaan caruurta u hayaa ama guryaha u hagaajiyaa fayraska koronuhu markii uu bilaamaday shaqadii way adkaatay hanaanka dhaqaale ama kan bulsho ee halkan ka jira ma ahan mid yaqaana dadka sharci la'aanta ah waa nolol cadi badan oo adag inaadan u noolaan karin sida aad naftaada la jeclaan lahayd waa qalbi jab weyn sharciga iminka waxa lagu bixiyaa hanaan ku xiran kiiska muhaajiriintani waxa ay rabaan in lagu saleeyo shuruudo cadcad sida in qofku ehel ku leeyahay Belgium ama uu shaqeeyo dadka reer Belgium siyaabo kala duwan ayay arrintan uga falceliyeen dawladdu waa inay dadkan daryeeshaa ilaa iyo xad laakiin dadka dalbanaya daryeelka iyana waa inay ogaadaan in wax kooban uuna ay qaban karaan Even if you are here since a few years, xitaa haddii aad halkan dhowr sano joogtay macnaheedu ma aha in sanadaha kooban ee aad joogtay ay kuu banaynayaan in aad sharci rasmi ah hesho shuruucda uma bedelayno sababaha la xiriira in raashinka laga soomay xeerarku sidoodii ayay ahaan doonaan waxaana jira siyaasado muhaajiriinta quseeya oo iminka la dardargelinayo inta badan dadka gadoodsan waxa ay raashinka ka sooman yihiin in ka badan 50 maalmood ilaa iminka qofna ma geeriyoon laakiin dhowr ayaa cisbitaal la dhigay dameeraha waa gaadiid muhiim u ah nolosha bulshada Soomaaliyeed waa la rartaa waana la dhaansadaa laakiin lama daryeelo waxaana loo geystaa jirdil iyo in la siiyo kaniiniyo awoodda kordhiya mana jiraan xeerar iyo sharciyo ku aadan xuquuqda xayawaankaas marka laga reebo xeerar hoose oo bulshada u samaysatay oo la xiriira xoolaha la dhaqdo magaalada Kismaayo waxaan idinkaga haynaa warbixin gaar ah oo ku saabsan dameeraha iyo tacadiyada loo geysto Saxnuun Axmed ayaana warbixintan eegaya Cabdullaahi waa biyoolo ku shaqaysta dameerkan saaka wuxuu isku diyaarinayaa inuu shaqeeyo saacado badan si uusan u daalinna wuxuu kaniin siinayaa dameerkiisa markuu shaqayn rabto inuu wax kala muddo ku rido way haddii ku ridin dameerka ku mas'oona isdili kartina ma ogeey mana ku shaqaynayo subaxa hore intuu uusan shaqada aadin wuxuu dameerka siiyaa xanuun baabi'iye xoogan oo loo yaqaan tramadol isagoo ugu daragan leyda sababta uu u siiyo waa inuu waqti badan ku shaqaysto culays badan qaado wadooyinka bacaadka ahna si dhib yar ku maro wuxuu noo sheegay in wax soo saar ku laba jibaarmo marka uu dameerka siiyo tramadol marka hore inta aan siin jirin laba biyaashka ma badin jirinbo subax bas qaada oo caajisan duhrin hadana oo maqribi hadana hal bala saara bis oo si asalis ku soo marka oo tramadol soo angal alxamdulillah afar biyaash ku qaataa si hore hadda ii dhaanta marka tramadol soo marka angal halkan waa suuqa dameeraha ee magaalada Kismaayo subax kasta waxaa loo iib keenaa ku dhawaad 30 dameer intooda badan waxaa laga keenaa miyiga magaalada Kismaayo oo naloo sheegay in isticmaalka tramadol ku gaaray Saciid Ibraahin waa dulaalka la gada dameeraha muddo dheer ayuu ku jiray shaqadan
way u dhib yar tahay inuu aqoonsado dameeraha la siiyo tramadol. biyoolayaashuna waxay door bidaan dameeraha la qabsaday kaniinka. haddii dameerkii oo wax kaniin la siiyo waa la garanaa maba istaagayba ad qof tramadol cunum arkimaya maba istaagayba inta dameeraha inta ku dhaxbaa ma dhex istaaga wana maskax laga galay dameeraha waxa u badan kuwan biyaha dhaamay kuwan biyaha bur ablka ka soo qaada kuwaas u badan biyaha dameeraha kaniin la siiyo. dadka shacabka ah ee ay biyaha u geeyaan inta badan ma oga in dameeraha la siiyo tramadol. gabadhan waxay macmiil u ahayd biyoolahan muddo sanad ah. waa qalad inay masaakiinta haddana inay waxyaalo intay daraas ku soo diraan ee haddana ay ku shaqaysanayaan marka waxaan kula talin lahaa dadkaas inay waxaas dameer ka dhaafaan oo masaakiinta ah. cabdulaahi waa aabba xaas iyo 8 carruur qoodiya. wuxuu ku dadaalayaa sidii uu nolol ugu heli lahaa qoyskiisa, laakiin waxaa noo muuqata inuusan ahmiyad siinayn caafimaadka dameerka. intii aan duubaynay shaqada cabdulaahi waxaan arkaynay in mararka qaar dameerku ilmaynayo. jirka maxaa hayaa sunta daawada haysaana socod la marka sunta yeelay ilintaas daadinaya. dhaqaatiirtu waxay noo sheegeen in xanuun baabi'iyahan aan loogu talagelin dameeraha, dhaawac culusna u geysto xubnaha jirkooda, muddo kadibna ay ku adkaato inuu shaqeeyo. waxaa la keenaa kiisas fara badan oo ay ka mid tahay kanin dameero la siiyey tramadol la siiyey oo dameerkii intii wax tiro badan la siiyey carabka taa uu soo dhacay ay jiraan oo ay noqotay inaan muddo la tacaalno dadkii ilaa hadda macnaha wax dawlad controleyso ma laha quality control aan jirin sababta waxa waaye qofkan wuxuu dameerkiisa siinay cid og ma lahan. awooddii dowladeed ee Soomaaliya oo god gashay, qawaaniinta iibka dawooyinka oo mugdi ku jira, iyo bulshada oo aan ku baraarugsanayn daryeelka xayawaanka ayaa sababay xadgudubyada noocan ah. si aysan u sii soconna waxaa loo baahan yahay dadaallo wax ku ool ah oo lagu fogeynayo ku xadgudubka xoolaha. saxnuun axmed, BBC. haddana wararka ciyaaraha ee caawa. Arsenal ayaa joojisay safar xilli ciyaareedka ka hor ay ku tagi lahayd Mareykanka si ay u ciyaaraan Florida Cup kadib markii dhowr ka mid ah laga helay COVID-19. waxaa lagu waday in ay la dheelaan Inter Milan, Everton iyo Colombia. Florida Cup ayaa axadda bilaabanaya mana ka hadal qabanqaabiyaashooda haddii Arsenal cid kale bedelayso. magaalada Brisbane ee Australia ayaa la xaqiijiyay in ay martigelin doonto ciyaaraha Olombikada naafada iyo Olombikada kale sanadka marka uu noqdo 2032. guddiga Olombikada caalamiga ayaa Brisbane musharax u taagan qabashada tartanka u doortay bishii February, balse maanta ayay xaqiijiyeen waa markii saddexaad oo Australia martigelinayso ciyaaraha Olombikada 2032. waxay noqonayaan kuwii ugu horreeyay ee raaca qaynuunada cusub ee lagu caawinayo in magaalooyinka ay dhimaan qarashka. miisaaniyaddan waxaa la filayaa inay noqoto 3 meelood hal meel waxa Tokyo ku baxa. inaan guryaha laga soo bixin intii lagu jiray xayiraadda Covid aad ayay noogu wada adkayd. ka waran haddii aad ka mid ahaan lahayd ciyaartooyda ciyaaraha fudud adduunka ee Olombikada ka qaybgalaya. waxaan idin haynaa qaar ka mid ah kuwa Tokyo ka qaybgalaya wixii ay sameeyeen intii xayiraadda lagu jiray. qaar ayaa culays dheeri ah isa saaray. Farxaan Maxamed Jimcaale ha inoo sharaxo. mashiinka lagu ordo umaba baahnayn Paul Chelimo oo orda 5,000 mitir. orodyahankan Mareykanka ah waxa uu bilaabay inuu xaafadiisa ku tababarto. Anouk Verge Debre waxa iyana ay isticmaashay ardayga guriga walaasheed oo si xirfad ay ku jirto kubadda fooliga ay halkaasi ku tababaranayso. iyada u tuurta marna waa loo soo celiyaa. Hidlin Diaz oo u dhalatay Philippines waxa iyadu gym u bedelatay jikadeeda oo ay ku tababaranaysaa waliba si toos ay online-ka u soo gelisaa iyadoo wax culus qaadaysa waxana ay lacag samafalo cunto ay ku iibsadaan ay u ururisay 100 qoys. laakiin ciyaaryahanada Swiss-ka iyagu kamaba walwali doonaan geedaha ku yaala magaalada Tokyo. Jenny Fuchs feeryahankan waxa isna uu ka samaystay gym bannaanka.
Sing Power isna waxa uu aaday guriga tababarihiisa si uu ugu tababarto halkaasi toogashada 10 mitir ah ciyaaryahankan u dhashay waddanka India. Ray Basil ayaa iyana waxay ku tababaranaysaa gurigeeda garaash ku yaala halkaasi oo ay ku ridayso qorigeeda laakiin marnaba hawada aan loo gabayn waxaana ay u eg tahayba ciyaaryahannadan reer Lubnaan in aanayba keebka qaban. olombikada ayaynu weli ku jirnaaye ugu dambeyn waxaan idin hayaa maalmo ka hor intaan ciyaarahan la furin Tokyo waxaa xaflad hab macmal ah loo sameeyay qadka internetka ka daawanaya 850,000 oo qof. carruur dunida dacaladeeda kala jooga ayaa lagu martiqaaday inay u soo gudbiyaan farshaxano ay sameeyeen oo halka munaasabadda lagu soo bandhigayo oo si macmal ah wax walba loo soo bandhigayo munaasabadda waxaa ka heesayay fanaaniin iyana hab macmal loo sameeyay farshaxanka ay sameeyeen carruurtaasina waxay soo gaareen guddiga ka hor inta aan la furin. mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaas oo ka heli doonto muuqaalo falanqayn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa caawiya caalamka waad ku mahadsantihiin daawashadiina intaan habeen dambe kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa nabad gelyo.